Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Walaal fiidnimo wanaagsan kusoo dhawaawa cashirkeena caawa. Insha Allah tacaala cashirkeena caawa section 3 ayaa noo bilaabanaya. Section 3 xali ayuu noo bilaabmay waxyaabo yara ayaan ka hadalnay oo guud ahaan ku saabsan barnaamijkan qaybtan shanaad qaybtan aan galnay oo saddexaad oo ka hadlaysa traffiga macnaha qofka macaamilka sida lagu helo iyo ruleska qofka laga rabo macaamiisha oo qofka raadinayo rules iyo shuruuc ay leedahay aan dhahnay qayba u kala qaybina waxyaabahaas dhan xalay ka soo hadalnay as introduction. Insha Allah tacaala caawa waxaan bilaabeynaa method ka mid ah methodska ama siyaabaha lagu helo macaamiisha. Waxaan sheegnay saddex nooc aan sheegnay loo qaybiyaa levels of traffic. First level traffic ayaan insha Allah tacaala xooga saari doonaa qaybtan oo 5 cashir ka kooban. Insha Allah tacaala 5 cashir waa 5 istiraatiijiyo waaye. Istiraatiijiyo kastana insha Allah tacaala journals oo gooni ah ayaan kusoo qaadan doonaa. Waxaan insha Allah tacaala example ama maxaa leeyahay ayadoo live ah ayaan insha Allah tacaala samayn doonaa. Caawa insha Allah tacaala cashirkeena wuxuu ku saabsanaan doonaa BBC method. Insha Allah tacaala BBC method ayaan ka bilaabi doonaa. BBC method waxaa la dhahaa pay per click method. Method noocaas macnaha waxaa waaye shirkadda xayeysiinaysid lacagta advertisement-iga aad dhiibaysid oo shirkadda macaamilka aad ka dalbanaysid waxay ka qaadaysaa click kasta oo qofka macaamilka ah linkigaaga markii meesha maxaa la isha macaamiisha aad ka dalbanaysid linkiga aad dhigatay meesha linkigaas markii click lagu siiyo ayay lacagta ka go'aysaa pay per click la waxaa ku bixinaysaa click markii lagu siiyo linkigaaga ama xayeysiintaada. Marka kullama click kasta oo dhaco lacaga laga jaranaa. Marka noocaas ayaa waxa loo yaqaanaa pay per click. Waxaa lacagta ku dhiibaysaa click kasta oo aad heshid. Qof walba oo xayeysiintaada taabto oo fiiriyo ayaa lacagta laga goynaa. Marka insha Allah qaybtaas ayaan ku bilaabi doonaa. Okay. BBC method ayaa loo yaqaanaa pay per click. Okay, haddaan hore usii galno. Pay per click mar haddaan maqashid waxaa ugu caansan Google Ads. Xayeysiinta lagu sameeyo Google-ka. Marka insha Allah tacaala maadaama Google ugu caansan yahay Google-ka ayaan ka bilaabi doonaa. Marka Google wuu ka duwan yahay website-yada kale inta oo xayeysiintan bixiyo ama xayeysiinta noocan qaybtan macnaha ku shaqeeyo oo pay per click dadka macaamiisha lacagta ugu qaado. Marka Google wuxuu u baahan yahay si gooni ah in loo dul istaago u baahan yahay siduu u shaqeeyo sida macaamiisha intaadan macnaha isha aadan campaign sameynin oo xayeysiin aadan sameynin waxyaabo Google-ka oo qiimeynaya ayaa jiro. Waxyaabahaas kood hore inaad fahantida laga rabaa. Haddaadan kuwaas fahmin oo toos u dhahdid waxaan u bilaabaa campaign ama xayeysiinta toos ayaan u bilaabaa. Waxaa laga yaabaa in wax fiican aadan ka helin. Laakiin waxyaalahan hadda insha Allah tacaala aan kula wadaagi doono haddaad fahantid Google-ka si fiican ayaa xayeysiintiisa u fahmi doontaa insha Allah. Marka Google Ads waxaa la wadaa Google advertisement ayaa laga soo gaabiyey Google Ads waaye. Okay. Google Ads simple example. Marka Google Ads si uu eg yahay horta Google Ads waxaa laga yaabaa inaadan weligaa arkin siduu u eg yahay advertisement-iga ama Google-ka siduu u eg yahay aan fiirino. Misaalkan fiiri meesha aan ka soo qaadanay. Tusaale ahaan qof aa imaaday meeshaas ayaa wuxuu ku qoray Nike shoes. Kabaha Nike la dhahayo ayuu rabaa inuu iibsado tusaale ahaan. Google-ka meesha oo search bar-ka oo wax lagu qorayo wuxuu ku qoray Nike shoes. Kabahaas ayuu ku qoray. Marka Nike shoes markuu ku soo baxo dhinaca bidixda ah oo Google-ka hoostiisa loogadii waxaa kaaga muuqanayo nike.com Nike shoes waxaas jaalaha ay ku qoran yihiin aad ay ku qoran yihiin ayaa waxaa laga wadaa advertisement. Adi marka xayeysiintaada meeshaas camal ay fuuleysaa aadkaas waxaa laga wadaa meesha kugu qoran waxaa laga wadaa xayeysiinta laga wadaa. Mar walba marka Google keywordska meeshaas lagu qoro Nike shoes keywords alla keywordkaas meesha lagu qoro xayeysiin ayaa la socoto. Marka xayeysiimaha laba meel ayay gashaa. Xayeysiinta saddexda koronto geeska ah oo mar walba ay ku bilaabato marmar waxaa la isha dhanka midig oo kaleenta sponsored meesha ay ku qoran tahay ujeedid kabaha iyo waxaas meesha yaalo waxaas xayeysiin waa dhanka midig yaalo marmar hoos ay tagtaa. Saddexdaas xayeysiin korka kaaga muuqato
oo aad ay ku qoran yihiin hoosteeda wax yaala waa website-yo caadi ah organic aa lahaa kuwan organic traffic aa lahaa website-yada caadiga waay laakiin saddexda kor mar walba waxaa iska leh xayeysiinta dadka xayeysiisanaya ayaa meeshaas loo dhigaya xayeysiintooda tusaale ahaan hadduu qof imaado oo nike.com midka koowaad uu ku dhufto qofkaas kiligaas meesha lagu dhufto lacagaa laga goosanaya googleka lacagay ka goosanaya xayeysiintiisa ilaan qofku wuu arkay marka guud ahaan google adska sidaas ayuu ogyahay marka xayeysiintaada aad googleka ku samaysanaysid sidaas ayuu u muuqan doontaa insha allah saddexda qeyb ugu horeysa si fiican u fiiri oo nike.com nike shoes ay ku qoran tahay nike shoes at zobs at zabos nike shoes on sale saddexdaas waxaa ku fahmaya inuu aad yahay calaamadaas aadka ku qoran ad ku qoran tusaale ahaan googleka markaa gashido wax aad ka baaranaysid haddii aad aragtid aad meel ay ku qoran tahay si oo ciyaar ah click ha u siinin adigoonan xaaje ka lahayn tusaale ahaan clicktaas aad ku siisay qofaa lacag ka khasaarinaysaa marka isku day haddaa aragtid inuu aad yahay oo advertisement yahay oo adigna markaas aadan wax gadanaynin ama wax kale ka ahayn kuwa kaleento organiga iska aad oo website-yada oo aad ku qornayn tusaale ahaan haddii kuwan kaleento tusaale ahaan aad ku dhufatid aadki qofaa lacag ka khasaarinaysaa marka sidaas ha sameynin okay guud ahaan marka kaas waaye sidaas uu ekaan doonaa xayeysiintaada meeshaas ayay fuuli doontaa marka inta badan googleka marka wax lagu xayeysiisanayo waxaa muhiim ah saddexdaas mid kamid ah inaad noqotid weliba midka ugu koowaad inaad noqotid marka saa ku noqotid midka ugu koowaad waa adag tahay haddaadan fahansaneyn google strategiyadeeda haddaadan fahansaneyn way kugu adkaanaysaa xataa inaad saddexdaas ka mid noqotid aad adkaanayso iska dhaaf midka koowaad inaad noqotid marka insha allah tacaala waxaan ku bari doonaa sidii aa ugu mid noqon lahayd saddexdaas weliba midka koowaad aa u noqon lahayd strategiyadan ku bari doonaa insha allah oo barnaamijkaas loo sameeyo insha allah ila soco okay google ads key players horta markaa xayeysiin aad ku samaysanayso googleka xayeysiintaas waxay u dhexaysaa saddex qof saddex meel ayay ka imaanaysaa xayeysiintaas tamaam waxaa waaye key players ayaa jiro oo google advertisementkii ka qayb qaadanaya saddexday kala yihiin marka first users waa qofkii macaamiilka ahaa oo isticmaalaya oo keywordka kusoo qoray googleka oo badeecada raadsanayo waay oo solutionka raadsanayo waay tamaam second qofkii labaad waa advertiserski waa adigii oo badeecadii qofka xayeysiinayo suuq geynayo waay okay midka saddexaad waa google shirkadii nii dhexeysi waayo oo barnaamijkan waday marka shirkadaas oo xayeysiinta haysto oo google ah qofka userkii oo maxaa la isha oo soo doonanayo inuu maxaa la isha productigi iibsado ama servicekii iibsado oo google ku qorayo keywordska iyo adigii oo xayeysiintii wado oo qofkaas userka rabtid inaa wax ka iibisid marka google advertisement saddexdaas qayb ayuu kulmiyaa waa users haddaa maqashid waxaa waa dadkii macaamiisha ahaayeen waaye oo isticmaalayay advertisers waa adigii dadkii wax xayeysiinaya waa suuq geynayay googlena waa shirkadii weyneed ee barnaamijka lahayd ee xayeysiinta meeshii lagu sameynayo horta saddexdaas ayuu u dhexeeyaa barnaamijka google ads markaa maqashid saddexdaas ayuu kulunsanaa okay marka waxaan rabnaa inaa meeshaan insha allah tacaala kugu baro google ads siduu u shaqeeyo inaa si fiican u fahantidaa muhiim haddaa fahantid google ads siduu u shaqeeyo si fiican ayaa u fahmaysa wax badanna waa iska ilaalinaysaa lacag badanna kaama khasaarayso insha allah okay horta google ads markaa rabtid inaa fahantid waxa ugu horeeya oo niyadaada kusoo dhacayo waa bidding waxaa loo yaqaanaa lacagta aad dhiibaysid kiligii meeqaa lagaa qaadi doona halkii kilig meeqaa dhiibay tusaalahaan 100 kiliga camal aragta kilig mar haddaa maqashid waa hal qof uu dhigmaa hal macaamil tusaale ahaan aniga oo ibrahim haddaa hal mar kilig ku siiyo oo mar labaad kilig ku siiyo liima xisaabinayo waxaa lagu xisaabinaa hal qof bisa lagu xisaabinaa ip adresska la xisaabinaa meeshaan marka 100 kilig waxaa waaye 100 unique person waa 100 qof oo kala duwan waa micna marka bidding haddaa maqashid waa kiligii ama halkii qof oo linkigaaga ama xayeysiintaada ku dhufto inta lagaa goynayo oo xayeysiinta googleka ay kaa jaranayso meeqay noqon doontaa labo sheyga labaado inaad fahantid lagaaro waxaa waa quality score muhiim waa isagana waa ka hadli doonaa macnaha waxaa laga wadaa quality scorekaada waxaa laga wadaa xayeysiintaada
maxaa la ishay Google-ka marka oo maxaa la wax ku xayeysiisanaysid wuxuu fiirinaa waxyaabo quality score saddex meel oo ka fiirinaa waa sheegi doonaa hadda mar inaan ka hor dhaco laakiin guud ahaan aan kugu sheegaa bidding-kaas ugu horeeya oo lacagta aad bixinaysid imise ay tahay halkii click quality score-kaadana waxaa waaye xayeysiintaada score-keeda 1 ilaa 10 score ah ay u sameeyaan marka quality score-kaaga ama xayeysiintaada ayay Google-ka waxay ku sameynayaan checking macnaha waxay fiirinaysaa meelo badan ay ka fiirinayaan mar inaan ka hor dhaco waa dul tagaynaa insha Allah okay qaybta saddexaad oo Google-ka ay fiirinayaan waxaa waaye ad rank tusaale ahaan saddexda qofood oo macnaha xayeysiintooda kor la saarayo kow ma noqonay laba ma noqonay saddex ma noqonaysa si cashwaayi miskiga dhigayaan waxyaabo waxaa jira calculation la sameeyo qofkaana kow ah qofkaana laba ah qofkaana saddex ah sidaas ayaa loo sameeyaa marka intee ka galay kow ma galay laba ma galay saddex ma galay eber ma noqonayo meesha dhan ma laga tuuraa booska saddex qof bisa loogu talagalay kow laba saddex haddaa 4 iyo 5 noqotid xayeysiintaada lama arkayo bumped ay noqonaya xayeysiintaada marka saddexdaas ugu muhiimsan inaad fahantid bidding lacagta aad bixinaysid keligii imisa lagaa qaadaa halkii kelig labo quality score waa ka sheekay doonaa waxa uu yahay saddex qayb u kala baxaa ad rankigan ama maxaa leeyahay Google-ka saddexda qayb u sareyso intee lagaa dhigaa kow ma noqonay laba ma noqonay saddex ma noqonay xayeysiintaada kow laba saddex kee noqonay waa la fiirinaa marka saddexdan ugu muhiimsan Google-ka inaad ka fahantid bidding quality score iyo ad rank okay mid u qaadanayna marka okay this guy Mr. Black the bidding ayaan ka hadlaynaa Mr. Black this guy waxa waaye xayeysiin waxa waa advertisers waa afar advertiser aan soo qaadanaynaa tusaale ahaan okay Mr. Blue xayeysiye kale waa advertiser kale waaye Mr. Red advertiser kale waaye and Mr. Green macnaha afartan qofood ayaa competitors ah afartan qof ayaa meesha isku cariirinaya saddexda maxaa la xayeysiin ay kor taalo oo loogu talagalay Google-ka inuu maxaa la muujiyo saddexdu afartan ayaa ku tartamay macnaheedu waxa la wada hala khadka laga bixinaa la wada saddexa ku soo haray saddexdoodu ku soo hartay kee ku noqonay kee laba noqonay kee saddex noqonay insha Allah kuwaas ayaa rabaa inaan kugu baro muhiim waaye si fiican u faham marka hadda waxaan ka hadlaynaa bas bidding-ka ka hadlaynaa bidding lacagta ka hadlaynaa tusaale ahaan Mr. Black wuxuu dhiibtaa tusaale ahaan Mr. Black wuxuu bixiyaa maximum bid lacagta ugu badan oo bixiyo Mr. Black waxa waaye $2 tusaale ahaan qofkaas $2 uu dhiibaa okay Mr. Blue asana wuxuu dhiibaa $3 Mr. Red $1 uu dhiibaa waa ka cadahay $1 iska bixiyaa lacag badan ma haysto Mr. Green $4 uu dhiibaa halkii click loogu siiyo $4 uu ogol yahay lacag badan oo haystaa ninkan Mr. Red oo kaleente midka guduudan oo kale wuxuu haystaa wuxuu leeyahay ani halkii click $1 lee baxsan karaa lacag badan ma haysti Mr. Blue midka buluuga ah wuxuu leeyahay ani halkii click oo lagu dhufto $3 ogolahay Mr. Black midka ugu sareeyay wuxuu leeyahay ani halkii click oo Google-ka wuxuu leeyahay waxaan ku ogolahay inaan $2 ku siiyo okay marka intaas aad fiirisid waxaan dhahnay bidding-ka mar walba Google-ka muku qiimeynayo kaliya maxaa la lacagta ugu badan yaa bixiyo kuma qiimeynayo saddex wuxuu ku qiimeynaa dhahnay bidding-ka lacagta kow waaye horta labo quality score-kaaga landing page-kaaga iyo waxyaabahaas waa sheegi doonaa iyo quality-ga uu leeyahay xayeysiintaada iyo landing page-ka saa usoo diyaarsatay iyo waxyaabahaas dhan iyo click through rate-kaaga iyo waa sheegi doonaa iyo wuxuu kaloo intuu fiirinaa dhahnay ad rank-gaaga la fiirinaa tusaale marka halahan marka aad fiirisid yaa baxaayo yaa joogayo okay midka ugu lacagta yara baxaya la wada waxa baxaya meeshan oo pumped noqonayo midka guduudan sababtoo midka guduudan $1 oo la carrooya meesha waxa meeshan ku soo harayo midka madowga ah oo $2 ogol iyo midka buluuga ah oo $3 dhiibayo halkii mar oo kligiis lagu dhufto iyo midka green-ka oo cagaarka oo halkii mar oo maxaa la click oo lagu siiyo xayeysiintiisa ogol inuu $4 dhiibo hadda example-ka markaas aan u fiirino saddexda qof oo la qaadanayo waxay noqonayaan green-ka ugu horeeya kaalinta koowaad ku jiro maadaama 4 uu dhiibayo kaalinta labaad waxaa ku jiro buluuga oo dhiibayo $3 madowga ku xigo oo $2 ogol halka guduudka meesha laga tirtirayo sababtoo Google-ka saddex qof bis oo gashaa kor inay fuulaan oo xayeysiintooda la tuso marka hadda inta laga fiiriyo
lacagta markii laga fiiriyo laakiin lacag bis kaligiis Google ma ku qiimeeyo wax. Okay, dhanka lacagta waa soo fiirinay 3 qof waxaan limidka guduudka meesha ka baxay oo $1 la ordayo. Tamam, hadda waxaan fiirinaynaa quality score. Quality score maxaa laga wadaa? Xayeysiintaada ama linkiga u dhiibtay Google-ka markaa meesha ku xayeysiisanayso wuxuu kaa fiirinaa waxa aad xayeysiinayso quality ma leeyihiin. User-ka oo Google-ka wax soo qorayo Google ma rabo inuu user-kiisa uu waayo ma rabo. Macnaha hadduu misaal oo kale inta uu geliyo how to make money online uu ku qoro meesha kore. Google-ka wuxuu rabaa wax sax inay usoo baxaan qofka uu ka faa'iideysan karo uu rabaa Google. Okay, marka suu saas ku helo xayeysiintaada waa inay how to make money online ka hadlayso si sax ugu hadlayso qofkaas user-kan uu ka faa'iideysanayo. Tusaale ahaan sidee internetka lacag looga helaa ku qortay Google. Haddii kuu soo baxdo ka waran sidee cayilka la iskaga jaraa. Wax isku dhigma ma aha. Marka Google waxyaabaha ay fiirinayaan waxaa ka mid ah waxaa meesha aa wadatid oo xayeysiintaada ah iyo user-ka waxa uu raadinayo uu ku soo qorayo Google-ka uu ku soo qorayo search bar-ka ma is leeyihiin meeshaasaa quality score-ka laga fiiriyaa. Marka Google quality score-ka waxay u qaybisaa 1 ilaa 10 ayay ku qiimeysaa. Okay, aan fiirina marka. Quality score-ka Google markay fiirinayso 3 meel ay ka fiirisaa. Kow waxay ka fiirinaysaa wax loo yaqaano CTR. CTR waxaa laga wadaa click through rate. Tusaale ahaan ad-kaaga ama advertisement-igaada waxay aa wadatay adiga xayeysiisanaysay. Tusaale ahaan qof wuxuu ku soo qoray adiga waxaa xayeysiisanaysay tusaale ahaan waxaa xayeysiinaysay how to lose weight oo kale. Tusaale ahaan product oo cayilka la iskaga jaro ayaa xayeysiisanaysay. Marka qof marka wuxuu ku soo qoray how to lose weight oo ku soo qoray Google-ka. Okay, how to lose weight markuu ku soo qoray waxaa soo baxay marka waxaa soo muuqday xayeysiintaada ayaa soo baxday ayaa qofkii macaamilka ahaa u soo baxday search bar-ku ku arkay. Soo muuqashadaas uu arkay xayeysiintaada oo Google u soo bandhigay impressional lahaa. Waa marka click through rate-ka waxaa la wadaa inta jeer ii sheeg qofka macaamilka uu ku qoro ii sheeg product-iga adiga relevant-iga ku ah keywords-ka ah uu ku qoro oo xayeysiintaada uu tuso Google inta jeer uu taabtaa loo qaybinaa. Tusaale ahaan 1000 jeer xayeysiintaada qofkan 100 jeer aan dhaho 100 jeer la tusi tusaale ahaan xayeysiintaada ay soo muuqatay oo la arkay 100kaas jeer 10 jeer camal click la sii 10 qof camal ay ii sheeg ka faa'iideysteen oo dhaheen waa u baahannahay. Marka waxaa la dhahaa waxaa loo qaybinaa 100kii waxaa loo qaybinaa 10. Waa wax aad u yar. Marka sidaas waa inta click inta impression oo ii sheeg Google uu soo bandhigo xayeysiintaada waxaa loo qaybinaa inta qof oo click ku siiso oo xayeysiintaas taabato loo qaybinaa. Haddii marka ay yaraato hoos aaday lacagtaada badan micno ma sameynayso. Haddii laakiin ay badato waa saarabtay. Marmar waxaa dhici karta adoo $1 dhiibay ama $2 dhiibay ayaa quality score-kaada high noqon karaa. Click through rate-kaada high noqon karaa. Inta badan click through rate-ka 9, 8, 7 ayuu gaaraa. Wax badan ma noqdo 7%, 8% saas waa suuqa inta badan. Okay, qaybta labaad oo Google-ka uu ka fiirinayo waxaa waaye markii laga hadlayo quality score-ka landing page-kaada uu fiirinaa. Hadduu arko landing page xun si fiican loo soo qorin si fiican loo soo habeynin waxa ku yaalo oo ii sheeg si fiican u qurux badnayn waxaa noqonaysaa punt meesha waa laga tuuraa. Ilaahu $100 wada daaratid halkii click oo dhiibaa kaama yeelay Google. Marka muhiim waa landing page-kaaga waxa ku soo qorayso warqadaada xayeysiinta lead magnet-kaaga hook-gaaga call to action-kaaga page-ka inuu qurux badan yahay design-kiisa fiican yahay waxaas dhan ay ka fiirinayaan. Marka landing page-ka muhiim waa. Okay, meesha saddexaad ay ka fiirinayaan oo quality score-kaada ay ka xaqiijinayaan oo ay kugu qiimeynayaan 1 ilaa 10 ay kugu qiimeynayaan waxaa loo yaqaanaa ad relevance. Ad relevance waxaa la wadaa waxaan xayeysiinaysid iyo qofka oo user-ka ah waxa uu ku soo qoray meesha ma is leeyihiin. Waa la isku fiirinaa. Haddii waxaan ka hadlayo lose weight culeyska si la iskaga yareeyaa adi ad-kaada inuu ka hadlayo culeyska si la iskaga yareeyo. Google-ka way fiirinayaan. Tusaale ahaan qofka lose weight waa dhacday ma aha waxay booqanayaan ii sheeg website-kaaga ama landing page-kaada ay fiirinayaan. Landing page-ka ku sii dhufanayaan waxay fiirinayaan website-ka saxda ah oo qofka uu ka gadanayo macaamilka ayay fiirinayaan way hubinayaan.
ay isdhihin adi qof hubinaya waxaan waxaa waa system ay haastaan oo waxaasna ilbiriqsi ku sameynayo reportiyay haastaan oo waxaas dhan ilbiriqsi ku sameynayo marka muhiim waaye waxa aad rabtid inaa xayeysiisid iyo qofka keywordka oo isticmaalaya inay islahaadaana la rabaa sidoo kale waxaa la rabaa landing pageka iyo websitekadan inuu yahay website haya tusaale ahaan haddii website aad ka samaysatay shirkadaha iska yaryaro oo maxaa la websiteka markii loading lagu sameeyo baxbaar iska wareeganayo oo qofka hataa macaamilka ku caajisayo oo waxyaabahaas waxay ku keenaysaa in maxaa lahay isheeg low quality score ay kugu dhacdo oo 1 iyo 2 iyo waxaas ay heshid oo meesha dhan aad ka baxdid xayeysiinta aad wadi waysid aan dhici karto marka inta badan waxaa la isticmaalaa Bluehost oo kaleente waa sheegay website haddaad samaysanaysid kaasaa fiican loadingkiisa iyo high speed fiicanna leh waana kasoo hadalnay linkigiisa iyo wixiis dhanna waa kuu soo diray barnaamijkaas tartiib xagga ka samayso website oo waxaa u baahan tahay oo maxaa lahay isheeg speedkiisa high ah waa u baahan tahay markii laga hadlayo meeshan sidoo kale waxaa u baahan tahay landing pages oo aad iyo aad u fiican waxaa u baahan tahay oo qurux badan waxaa kaloo u baahan tahay landing pagekaada qofka markuu arko inaa heshid clicks badan inaa heshid waa oo dad badan ay ku dhuftaan ay daneeyaan haddii clickiska ay kugu yaraadaan impressionskaadana uu badan yahay xayeysiintaada hoos ay u dhacay marka quality scoreka google-ka ay fiirinayaan saddexdaas meel ay ka fiirinayaan okay add rank calculation marka waxaan rabaa inaan meeshan ku xallino xoogaa yar oo xisaabaad aan ku sameyno sidee loo kala kormaraa kaalinta koowaad kaalinta labaad kaalinta saddexaad sidee loo kala galaa google-ka sidee ugu qiimeynaya qofka kay kaalinta koowaad galaayo kay kaalinta labaad galaayo kay kaalinta saddexaad galaayo kay meesha dhan laga saara afarta qofood oo xayeysiinta isku garbinayo markaan mithaal oo kale okay waxay xisaabiyaan maximum bid lacagta qofka uu dhiibanayo ayaa waxay ku dhufanayaan quality scoreka aa heshay quality scorekan mar walba wuxuu dhexeeyaan dhahay 1 ilaa 10 lacagta aad dhiibanaysid iyo quality scoreka aa heshaa isku dhufane waxaa helaysaa jawaabta kusoo baxda waa your add rank waa sheegi doonaa sida ay ku tahay laakiin calculationkaas iyo waxay isticmaalaan qaacidadaas maximum bid waxaa waa lacagta aad bixinaysid kiligi $1 $2 waxa uu yahay waxaa lagu dhufanaa quality scorekaada quality scoreka google waxaas google aa xisaabinayo wuxuu fiirinaa lacagta dhiibaysid taas adaa go-aanka gaara $2 $3 adaa taas go-aanka gaara quality scoreka ayagaa yaqaanaan markay fiiriyaan macnaha markay xayeysiinta aad samayto isla markay xayeysiinta lagu madaana xayeysiinta waxay ku sameynayaan reviewing ay ku sameynayaan reviewingkaas marka cabaar uu qaadanaa saacaduu qaadanaa marka saacadahaas ay kaa maqan yihiin waxaanay ku mashquulsan yihiin quality scoreka inay kaa hubiyaan click through rate-ka ay fiiriyaan landing pagekaada ay hubiyaan qofkan website-ka uu sii booqanayo markuu inta ka baxay ay hubinayaan ad relevancy ay fiirinayaan waxay dhahayaan qofka oo macaamilkeena waxa uu soo dalbaday iyo ninkan waxa uu meesha ku hayo isku mid miyaa waxyaabo qaarkood oo google-ka waxaa jira uu diidayo misaal oo kaleente muuqaalada anshax xumada oo kaleente muuqaalada oo maxaa la cheatingka iyo waxyaabahaas oo kale hackerska oo kale waxaasna inuu iska hubiyo rabaa marka waqtiga kugu qaadanaya xoogaa ina oo maxaa la ii sheeg wuxuu ku leeyahay advertisement-iga aad soo codsatay wax yar sug ilaa lagaaga daayo cabaara sugay 3 saac 4 saac camal waxay ku sameynayaan reviewing ku sameynayaan intaas ay ka maqan yihiin waxyaabaha dhan ku mashquulsan yihiin marka okay marka waxaan fiirinaynaa qaybtan master black ayaa soo laabtay master blue master red iyo master green marka waxaan rabnaa inaan ogaano okay maximum bidka iyo quality scoreka iyo add rank markaan add rank yaa rabnaa inaan soo saarno okay macnaha afartooda 1 2 3 say u kala galayaan kaalimaha rabaa inaan kugu baro tusaale ahaan master black lacagta uu dhiibto waa $2 quality scorekiisna waa 6 marka add rankiga maxaa lagu soo saarayay maximum bidko lagu dhuftay quality scoreka marka maximum bidkiisa waa $2 lagu dhuftay quality scorekiisa oo 6 ah quality scoreka 1 ilaa 10 waaye marka ninkan quality scorekiisa waa iska roon yahay waa 6 marka haddii 2 6 lagu dhufto meeqay noqonay 12 oo haystaa ninkan okay waa fahanay okay master blue asina uu imaw master blue wuxuu dhiibtay $3 uu dhiibtay quality scorekiisa waa 3 waa ujeedaa meeshan farqiga ka dhaxeeya waa fahmi kartaa lacag badan kaliya lama fiirinayo meeshan ninkan quality scoreka ku dhacay waxa laga yaabaa click through rate-kiisa inuu low ahaa landing page-kiisa ay qaab darnaayeen ad relevancy-giisa inuu liitay aa dhici karto
markii calculation ku sameeyeen waxa uu soo baxday ninkan inuu 3 yahay quality scorekiisa ninkan waxa waa marka 9 dhibcood oo haystaa okay inta imaa wadana ninkan guduudka fiiri asagana xaalkiisa guduudkaas wuxuu dhahay $1 aan dhiibana aniga okay halkaada dollar quality scorekiisa 8 waay macnaha waa nin wixiisa dhan u diyaarsan yihiin waa oo barnaamijka dhan fahansan waay oo landing pageska ad relevancy-ga maxaa la sheeg saddexda qayb oo maxaa la quality score-ka laga fiirinayo CTR-ka waxaas dhan ayuu ka soo dabaaran degay si fiican iskaga soo habay markii Google-ka calculation uu ku sameeyay quality score-kiisa 8 soo baxday laba leeb ka dhibneed 10 lagu saxaa 8 uu helay okay meeshaas waxa ka muuqdo ninkan 8 oo hasta quality score-kiisa waa 8 waxa ciilay oo kaliya halkaas dollar oo gadaal oo maximum bidka uu ogol yahay ayaa hoos u dhigay xogaa okay Mr Green fiiri asagane Mr Green asiga lacagta uu ogol yahay waa $4 ragana asaa kala lacag badan laakiin musiibo ku dhici doonto laakiin waxa quality score-kiisa hal leeyahay micnaheedu maxaa la wadaa waa nin iska gabgableynaya waa landing page-kiisa waa qaab daran yahay waa hooseeya waa liita 10 meesha laga reebay hal oo keenay wuxuu ku dhacay qaybta labaad oo quality score-ka waxa laga yaabaa xayeysiintiisa iyo wax uu macallay user-ka oo raadinaya inaysan islahayn landing page-kiisa inay qariban yihiin website-ka oo macallay qofku uu sii daray loading-kiisa inuu liito waxyaabahaas dhan Google-ka ka fiirinayaan dheel maaha marka ninkan quality score-kiisa 1 oo helay waa liita 10 laga reebay hal oo haystaa meeshaas waxa kaaga soo booqanaya 4 uu taagan yahay marka waxaan dhahnay Google-ka ad rankiga 3 qof bis oo ogol yahay 3 qof bis oo ogol yahay meeshan waxa ku cad hal qof oo meeshan ka bixi doono kan bixi doona kee waa marka ad rankiga laga fiirinay bis kan ugu liita baxay ad rankiga waxa baxay midka 4 wato midka 4 wato waa midka cagaarka ah waa oo hoose hadii la fiiriyo lacag ahaan yaa ugu badan asiga ugu badan $4 oo dhiibanaya Google marka ma dhigayso wallahi ninkan 4 oo dhiibanaya ninkan ay fiicane ha ii joogo ma jirto wax la Google-ka quality score-ka u muhiimsan quality score-kaada haduu low yahay laakiin oo high yahay aan ka wadaa lacagta dhiibaysa ee yarta muhiim ah tusaale fiiri ninkan guduudka $1 u dhiibta quality score-kiisa high waa 8 oo wata halka ninkan cagaarka ah $4 uu dhiibayo quality score-kiisana 1 oo yahay Google marka meeshan waxa ku cadeynaysa in lacagta aad dhiibaysid aysan micno lahayn lacagta aysan wax ku qiimeyneynin Google ay ku qiimeynayso quality score-ka waxaan xayeysiinaysid Google ku xayeysiinaysid quality score-ka oo saddexda meel laga fiirinayo click through rate-ka inta maro la soo bandhigay oo Google-ka dadka ay tustay inta maro click ku dhacday ay fiirinay oo dadka ay taabteen haday yar tahay halis galay okay waxay kale intuu fiirinaysaa aan dhahnay waxay kale intuu fiirinaysaa landing pages-kaada fiirinay landing pages-kaadana haday yihiin kuwa ever ah oo maxaa la ii sheeg aanan diyaarsanayn haday yihiin oo maxaa la click magic oo kale 3 landing page oo qurux badan oo habeysnayn hadaysan ahayn waxa waa safara tahay halis galay waxay kale oo ka fiirinay ad relevancy ka fiirinayaan waxa xayeysiinaysid iyo website-ka ku xayeysiinaysid misleeyihiin iyo qofkan oo macaamilka ah keywords-ka meesha uu ku soo qoray iyo adiga waxaan misleeyihiin isku fiirinayaan halaas hadii ka waayaan lacag badan dhiib hadaa rabtid micna ma sameynayso okay marka hadda marka fiirisid saddexdooda kaalinta kood waxa ku jiro Mr Black ad rankiga $2 uu dhiibana kor uu saaran yahay midka ugu koreeya asiga waa kaalinta labaad waxa ku jiro midka $3 dhiibanayo kaalinta ugu dambeysana waxa ku jiro midka $1 dhiibanayo kaalinta afaraad oo meesha maba ku jiro ninkan xayeysiintiisa waa hooseysa page 2 iyo meele u dhicay waxa laga yaabaa hataa in impression-kiisa oo Google dhaho maxaa la ii sheeg active maaha in lagu soo tuuro lagu soo celiya dhici kartaba okay Mr Black example kale Mr Blue iyo Mr Red macnaheedu waxa la wadaa ninkii cagaarka ahaa meesha waa ka baxay waa macna xayeysiintii waa ku dhacay ninkaas waa iskaga tagay okay marka waxa fiirinaa maximum bid lacagta badan qofku uu dhiibayo maximum score quality score ad rank marka waxa rabnaa inaan sheegno actual bid lacagta saxda ah oo qof walba uu dhiibaya markaan sheegayna
kan maximum bid waa maximum bid maxaa lacagta ugu badan oo qofka dhiibi karo waa lama rabo waxaa rabnaa hadda inaa ogaano actual bid google markay barnaamijkaas ay xaliso qofku waxay dhahaysaa intaas maadaama quality scorekaada uu high yahay aad rankigaaga oo kaalinta koowaad ku jirtid lacagtaasaa dhiibay ayuu leeyahay marka maadaama balaag kaalinta koowaad uu ku jiro meequu dhiibaa maxaa leeyahay ii sheeg ninkan odayga oo maxaa leeyahay ii sheeg master blue actual bidka uu dhiibaa meeqay noqonaya maximumka lama rabo actualka la rabaa lacagta saxda googleka ay ka qaadayso haddaad aadid googleka $2 aan dhiibaa actual bidkaada $2 inuu ka yaraada dhici karto markii quality scorekaada ee fiiriso oo yahay high way kaa qafiifine lacag yaray kaa qaadi markii loo fiiriyo kuwa kale okay master black marka maxaa waaye mithaalkan waxaa usoo qaatay tusaale ahaan waxaa rabaa saddexdoodaba min $3 inay dhiibayaan tusaale ahaan saddexdoodaba isku lacagay dhiibayaan markay kala lacag badan yihiin waa iska caddaayo madowgaas akaantigu aad rankayga sidaasi ku kala cad yihiin google ayaa actual bidka u samaynayso mid kasta lacagta uu dhiibaya ay ayada ka qafiifinayso culeys ma lahan aad rankiga markii aan kasoo fiirinay saddexda kaalin saddexdooda sidaas u kala hormarayaan lacagahana googleka ka qafiifinayso culeys ma leh laakiin waxaan kasoo qaadanaynaa saddexdoodaba inay min isku lacag dhiibayaan markaan sidee marka loo kala saaraa taasaa rabaa inaan insha allah tacaala ku fahansiiyo taasaa u baahan xoogaa yar fahan gaaban saddexdooda min $3 ay dhiibanayaan tusaale ahaan okay master black $3 oo dhiibtaa oo dhahay waa dhiibaa quality scorekiisa 8 waaye aad rankigiisa meeqoo noqonaa labadan oo laisku dhufto leh waa 8 3 ku dhufo 24 okay actual bidkiisa 2.25 soo bixiyso tamam sida ku soo baxday waa ku sheegi doonaa okay master blue asagana wuxuu dhiibtay $3 waa isku mid mithaalkan waxaan ka soo qaadaa inay lacagta isku mid ku dhiibanayaan okay quality scorekiisa google markay soo xaqiijisay 6 uu noqday aad rankigiisa asagana wuxuu noqday 18 aad rankiga waxa lagu soo saaraa quality score ko lagu dhuftay maximum bidka waa 6 times 3 waa 18 okay asagana wuxuu dhiibaa 1.15 okay 1.15 kan 2.25 kaas meeshuu ka imaado waa sheegi doonaa okay ninka ugu dambeeyo $3 oo dhiibtay waa mithaal $3 oo dhiibtay 24 3 ku dhufo 3 ku dhufo waa $9 minimum bid ayaa laga qaadaa marka mithaalkan si fiican ila fahma ninka koowaad aadna oo balaaga ah ninkan balaadka ah qaybtan actual bidka ah 2.25 waxay ku soo baxday waxay fiirinayaan googleka ninka kaalinta koowaad ku jira ninka kaalinta labaad ayay u fiirinayaan okay tusaale ahaan marka waxay fiirinayaan ninka kaalinta koowaad ku jiro oo madowga ah master black ayaa waxay fiirinayaan aad rankigiisa cafwan waxay fiirinayaan master black midka ka hooseeya fiirinayaan tusaale ahaan waa midka buluuga ah midka buluuga waxay fiirinayaan aad rankigiisa midka buluuga waa 18 si fiican u fiiri 18 kaasa marka waxay u qaybinayaan quality scoreka kan oo maxaa la madowga ah quality scorekiisa waa 8 marka 18 kan oo kan labaad uu haasto aad rankigiisa ayaa waxay u qaybinayaan quality scoreka kan balaaga ah kan ka sareeya ayay u qaybinayaan mar walba marka 18 haddii 8 loo qaybiyo waxay noqonay 2.25 lacagtaasay ka qaaday $3 meesha asoo ogolaa waxaa leeyahay maadaama quality scorekaada high uu yahay waa lagaa qafiifiyaa laleeyahay 2.25 sidaas ayaa ku dhiibay okay master blue asagana maxaa sameynaa midka ka hooseeya la fiirina okay midka ka hooseeya waa guduudka aad rankigiisa waa 9 fiiri 9 si fiican u faham 9 kaasa waxaa loo qaybinaa quality scoreka buluuga loo qaybinaa oo asi ka sareeyo 9 6 u qaybi waa 1.5 kaas sidaasuu ku dhiibaa asagana meeshuu $3 ogolaa asigana 1.5 laga qaadaa waa laga qafiifiyey yaa ku soo haray midka ugu dambeeya oo guduudka ah maadaama qof uusan ka dambeynin googleka ayaa go-aanka gaaraya minimum bid googleka ayaa dhehaysa intaana kugu filan intaan bixi go-aanka google iskale googleka dhahaya intaan bixi asaga minimum bid loo yaqaana marka sidaas ayaa barnaamijkaas loo sameeyaa examplada si fiican u faham ku cesho haddaa barnaamijkan si fiican u fahantid googleka meel ayaa saaraysaa googleka waxaa waaye xayeysiintiisa laguma degdego
haddaadan fahansanin shaxdan waa kugu adkaanaysaa marka insha allah tacaala waxaan rajaynayaa shaxdan inaa aad u fahantay insha allah tacaala next up waxaan rabaa insha allah tacaala inaan ka hadlo intaanan xayeysiinta tooska google-ka aan kuu geynin iyo barnaamijkaas barnaamij waxaa google-ka muhiim ah markaa wax ka raadsanaysid keywords aa lagu raadiyaa macnaha macaamilka waxa uu ku qoraayo meesha aa rabtaa aa la rabaa inaa la haleeshid aa lagaa rabaa macaamilka saxda ah waxa uu ku qoraayo google-ka text barka uu ku qoraayo how to lose weight how to make money online waxaas meesha uu ku qoraayo markuu intaas ku qoraba inuu kuusoo baxdaa la rabaa oo arko xayeysiintaada adoo quality scorekaada iska ilaalinayo quality scoreka ugu muhiimsan ya landing pagekaada iyo click through ratecaada inaa high dhigtid iyo ad relevancygaaga iyo websiteyadaada iyo waxaadna iska soo habaysid marka insha allah tacaala habeen dambe insha allah waxaan rabaa inaan ka hadlo si gooni ah how to choose profitable keywordska arrintooda dheeldheel ma aha keywordska 3 qeybaa loo qeybiyaa waxaa loo qeybiyaa broad match 2 phrase match 3 exact match saddexdaas haddaadan fahmin guud ahaan waxaa loo qeybiyaa keywordska short keywords iyo short tail keywords iyo long tail keywords aa loo qeybiyaa markii laakiin hoos loosoo daadego waxaa loosii qeybiyaa saddexdan qeybaa loosoo qeybiyaa broad match iyo phrase match iyo exact match waxaan kaloo kuu sheegi doonaa toolska la isticmaalo waxaan kaloo kuu sheegi doonaa istaraatiijiyada lagu doorto maxaa leeyahay keywordska fiican waxyaabahaas dhan insha allah tacaala kuu sheegi doonaa adoo halahaas fahmin xayeysiin ma aadi kartid marka insha allah tacaala cashirkeena caawa intaas ayaan kusoo gabagabeynaa aad iyo aad ayaa umahadsan tahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu